jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Birmingham ee gobolka West Midlands iyo dhammaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ee waddanka UK waxaan si naxariis ku dheehan tahay idinkaga codsanayna soo deynta dadkaas waayeelka ah iyaga oo bid qaba iyo weliba adinkoon shuruud ku xiran. ficil wanaagsan oo aad maanta samaysaan waxay u noqonaysaa meel ku ool Soomaaliya iyo dhammaan Soomaalida oo idin piracy. And this is a global problem. It's a problem for all countries involved in shipping. That affects everybody. It affects the way in which we get our goods and services in this country. It affects our economies, and it has a huge impact. And I would also call on all countries across the world actually to come together and work on this as a single issue together, because one country acting alone cannot do enough. We have lots of countries engaged in providing humanitarian assistance. In jaaliyada Soomaaliyeed ay maanta isugu yimaadeen si ay ku tusaan in ay taageersaneen in la afduubo qoyskaas oo Ingiriis ah. In terms of piracy, and I commend the efforts of the Somali community in getting this event here together today, because it demonstrates your proactivity in terms of coming out as a community, united on one front, and asking for the release of the Chandler's family.